السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وواضح أدي هذا ومهتمين ما أنت واحد شنطة بش جانوري كوبات سنة كلابا كون يشان يلباتنك مقال كان وحر رأينا ندي كل وذاقه قدوميها قبل كم مينيسوتا oo kadib markii musuqmaasuqa gobolka Minnesota oo faraha ka baxay wareegto soo saaray isla markaana sharci kale baarlamaanka gobolka Minnesota loo baahan yahay inay meel mariyaan oo wax looga qabanayo arrimaha musuqmaasuqa shalay ku dhawaaqay wareegtadana waa uu saxiixay sharcigaasina waxa uu u gudbiyay baarlamaanka sidii loo maalgelin lahaa hay'ad gaar ah oo loogu talagalay baaritaanka iyo soo qabashada arrimaha la xiriira musuqmaasuqa arrintan sidee ku timid iyo cadaadis muddo saarnaa gudoomiyaha gobolka Minnesota oo Republicaanku ay saarayeen oo dhahayeen arrintan musuqmaasuqa sii baahaya ee ka jira gobolka waa inaad wax ka qabataa darteed ayuu talaabadan u qaaday arrimahaas ayaan rabaa inaad la socodsiiyo iyo sidoo kale baarlamaanka gobolka Minnesota marka la eego sanadka iyo aqalka wakiilada oo iyaguna aqlabiyad aysan jirin oo la siman yahay sanadkan sidee awoodda loo kala qaybsan doonaa sharciyadana loo meel marin doonaa markii hore dimuqraadiyiinta ayaa maamuli jiray arrintaasina waxaan rabaa waxyaabo la yaab leh oo ka dhex muuqda inaan idin la socodsiiyo marka hore aan ku bilaabo gobolka Minnesota waxaan ognahay ku dhawaad ilaa iyo coronaviruskii laga soo bilaabo ilaa iyo hadda waxaa jira dhowr musuqmaasuq oo kala duwan oo barnaamijyo dowladda federaalka ay maalgelinaysay ama gobolku uu maalgelinayay oo lacagihii meeshii loogu talagalay aan la geynin Soomaali fara badan ay ku lug leeyihiin musuqmaasuqaasi welina baaritaan uu socdo dadka qaarna dacwada lagu soo oogay kuwa kalena baaritaankooda uu weli socdo arrintaasi darteed gudoomiyaha gobolka Minnesota cadaadis xoogan ayaa saarnaa in arrintan sii socota wax laga qabto oo la xakameeyo marka baaritaanka min muddo ayuu socday hadda qaarkood ayaa bishii la soo dhaafay xarumihii caruurta la xanuunsan autism-ka waa tii la baaray laba xarumood oo la kariyaado Smart Therapy Center iyo weliba Star Autism Center oo 3 wiik ka hor 12 bishii la soo dhaafay dokumentiyo fara badan laga soo qaatay walow weli aan dad dacwad lagu soo ogin marka wareegtadan shalay uu saxiixay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa waxa ay muhiimadeedu ay tahay in la sameeyo xarun dhexe oo gobolku uu leeyahay oo la dagaalanta musuqmaasuqa xaruntaasi waxa ay ka dhex shaqeyn doontaa hay'adda la yiraahdo Bureau of Criminal Apprehensions oo hay'adda qabashada dambiyada oo BCA loo soo gaabiyo sidoo kalena hay'adda dhinaca ganacsiga ee gobolka ayaa awoodo loo siinaya sidoo kale iyaduna in arrintaasi ay ka qayb qaadan karto marka wareegtadan shalay qalinka ayuu ku duugay waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay sharciyo adag oo lagu xakamaynayo mustaqbalka haddii musuqmaasuq laga shakiyo gobolka Minnesota waxaana sidoo kale hay'adaha dowladda awood loo siinayaa in ay joojiyaan lacagta ay siinayeen dad kasta oo looga shakiyo ama dacwad lagu soo oogo ama lagu helo musuqmaasuq ama dambiye dhinaca dhaqaalaha la xiriira in lacagihii la siin jiray la joojiyo Tim Walz sidoo kale sharci ayuu soo bandhigay sharcigaasi oo la doonayo in lagu xakameeyo marka hore oo musuqmaasuq la arkaba hore laga qabto baaritaan lagu sameeyay iyo waliba ka hordakiisa sharcigaasina waa uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz waxaan ognahay barnaamijkii Feeding Our Future oo lacagtii lamaba loogu talagalay in cunto lagu siiyo caruurta xilligii coronaviruska in 250 milyan la musuqmaasuqay oo 70 qof dacwada lagu soo oogay 7 qof ayaa ilaa hadda la maxkamadeeyay 5 ayaa dambi lagu helay mid waa la xukumay dad ilaa 22 dambigooda ay qirteen kuwa kale oo haweeneydii madaxda ka ahayd Feeding Our Future Amy Bark ay kamid tahayna dacwadoodu waxay bilaaban doontaa bisha labaad ee hadda soo socota ayay bilaaban doontaa ee February sidoo kale waxaan ognahay in hadda maalin dhaweeto labadii shirkadood caruurta goobaha lagu xanaaneeyo oo autism-ka qabta in labadaas xarumood 3 toddobaad ama 12 bishii hore Smart Therapy iyo Star Autism Center la baaray dokumentiyo fara badan laga soo qaatay walow aan wax dacwada lagu soo ogin caruurta la xanuunsan autism-ka ayaa loo baahnaa in ay kaargareeyaan 13.8 milyan ayaana halkaasi ku maqan wasaaradda caafimaadka ay bixinayso gobolka Minnesota barnaamijka la yiraahdo Personal Care Assistance oo BCA loo soo gaabiyo oo dadka
waayeelada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee curyaanka loogu talagalay sidoo kale oo Medicaid isagana uu gobolka uu bixiyo maalgelinayay $21 milyan ayaa ku maqan marka halkaasi marka la isku daro waa 284 milyan ayaa halkaasi ku maqan sida muuqata marka hadda musuqmaasuqaas sida darteed marka arintan waxay sababtay in gudoomiyaha gobolka uu tilaabadan qaado Tim Walz waxa uu yiri arintan waa waali waa gudoomiyaha gobolka waa inay istaagtaa oo siima socon karta ayuu yiri marka barnaamijkan oo sanadka 2025 ka bilaabanayo oo hadda baarlamaanka u gudbiyay barnaamijkaasi waxa la yiraahdaa anti fraud package waxa loogu talagalay in arrimaha musuqmaasuqa iyo xatooyada iyo waxyaabahaasi oo idin looga hortago muhiimadeedu waxay tahay in AI la sameeyo kombiyuutarada in oo hadii wax musuqmaasuq oo ay ka shakiyaan arkaanba in horey loo qabto artificial intelligence-ga oo horey ka qabto marka shaqaalaha xitaa gobolka waxa awood loo siiyo ama lagu amray in ay soo sheegaan qof kasta oo musuqmaasuq ama xatooyo ay uga shakiyaan macnaha waxa la yiri hadii aad wax fiishiya shuuftaan soo sheega macnaha wax hadaad aragtaan la isdaba marinayo hore ka soo sheega marka 39 milyan ayaa labada sano ee soo socota la doonayaa inay ku baxdo arintaasina baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa loo baahan yahay inay meel mariyaan miisaaniyada labada sano ee soo socota markay ansaxinayaan in arintaasi ay ku daraan marka muhiimaddu waxa ay tahay in arintan musuqmaasuqa gobolka Minnesota oo sii baahayso oo sii socota sidoo kale laga hortago barnaamijyada ay dawladda iyo gobolku ay maalgeliyaan ayaa si aad ah loo musuqmaasuqayay marka barnaamijkan la yiraahdo anti fraud package macnaheedu waxay tahay better detection marka hore sidii hore looga arki lahaa marka musuqmaasuq oo loo qaban lahaa in sidoo kale tougher controls in xakameynta la balaariyo iyo la socoshada hadii qof lacag la siiyo sidii loola socon lahaa iyo tougher penalties in la xoojiyo in ganaaxa ka imaan kara ama xabsi ha noqoto ama ganaax lacageed ha noqoto 20% sidoo kale la kordhiyay sidoo kale xeraalyaha gobolka awood ayaa loo siinaya asagana inuu baaritaan ku sameeyo dadka musuqmaasuqa looga sheekiyo marka Republicanku waxa ay leeyihiin markii hore hay'adihii loogu talagalay in barnaamijyadan ay la socdaan ayaa tacadiyay oo kormeerkaasi aanan sameeynin sida darteed arintan waa arin lala soo daahay ay hadda leeyihiin Tim Walz waxa uu yiri Republicanku hadii fikrado fiican hayaan hanoo soo gudbiyaano arintaasi sidoo kale waan ka qaadanaynaa fikradahooda fiican hay marka sharcigan hadda uu soo bandhigay oo arrimaha musuqmaasuqa looga hortagay ansaxin baarlamaanka ayuu u baahan yahay baarlamaanka aqlabiyadiisina labada xisbi ee Republicanka iyo Dimuqraadiyiinta gobolka Minnesota cid awood si rasmi ah hadda u haysa labada aqal ma jirto aqalka sanadka hadii aan ku hormaro 67 kursi ayuu ka kooban yahay hadda awooddu waa ay siman tahay oo waa 33 markii senator ka tirsan dimuqraadiyiinta oo magaceeda la yiraahdo Kari Gazadeki ay dhimatay todobaadkii la soo dhaafay iyadoo 62 jir ah kadib markii kansar laga helay 12 sano ayay dimuqraadi ahayd degmada lixaad ayaana laga soo dooranayay marka waa ay dhimatay marka hadda awooddu waa ay siman tahay halkaasi kursi oo doorashada ku celiska xilliga la qaban doono ay sheegi doono hadii dimuqraadi ay ku guuleystaan sanadka awoodiisa iyaga ayaa yeelanaya dhinaca kale ee house-ka arin la yaab leh ayaa ka dhacday waa aqalka wakiilada waxa uu ka kooban yahay 134 laakiin hadda awoodiisu waa 66 oo dimuqraadiyiintu ay leeyihiin iyo 67 oo Republicanku ay leeyihiin hal kursi ay aqlabiyada ay ku hayaan xisbiga Republicanka aqalka wakiilada arintaas sidee ku dhacday doorashadii November dhacday waxa jirtay xaafadda la yiraahdo 40B oo ay ka tirsan yihiin Roseville iyo waliba Shoreville waxa laga soo doortay nin dimuqraadi oo la yiraahdo Curtis Johnson oo 65.2% doorashadii November dhacday uga guuleystay Paul Wickstrom oo Republican oo 34.6 helay 7500 cod ka badan ayuu uga guuleystay laakiin ninkii Republicanka oo laga guuleystay maxkamadda ayuu dacwada gudbiyay waxa uu yiri ninkan la yiraahdo Curtis Jones meesha uu ka tartamayay ma uusan ku nooleen sida dastuurka gobolka Minnesota oo qabo 6 bilood ka hor intii aysan doorashada dhicin meesha uu ka tartamayay maba uusan ku nooleyn ninkan marka waxa la leeyahay Roseville agagaarkeeda inuu ku noolaado 6 bilood ka hor sida dastuurka uu qaba ayay ahayd laakiin Little Canada guri uu ku leeyahay ayuu ku noolaa sida darteed maxkamaddu waxay tiri doorashadaasi gabi ahaanba waa la laalay waa in doorashadaasi dib loogu celiyaa
sababtu maxay tahay ma uusan cadaynin inuu 6 bilood ka hor ku noolaa meesha uu ka tartamayay laakiin sidaas darteed doorashadii waa la tuuray gudoomiyaha gobolka marka isniintii ayuu wuxuu ku dhawaaqay labada doorasho midka sanadka ee degmada lixaad iyo midkan kale oo 40B oo aqalka wakiilada inay dhici doonto 28 bishan January aynu ku jirno aqalka wakiiladuna waxa uu dib u soo laabanayaa 14 bishan January aynu ku jirno ayuu fasaxiisa ka soo laabanaya laakiin maadaama hadda aqalka wakiilada hal kursi ay ku hayaan Republicaanku iyaga ayaa awoodda sii haynaya laakiin sanadka awood qaybsi ahaan ayaa lagu sii haynaya marka haddii aysan labada aqal aqlabiyad aysan jirin macnaheedu waxay tahay power sharing in lagu shaqeeyo ma hoggaan lama dooran karo gudiyana lama sameyn karo marka doorashadu waxay dhici doontaa 28 bishan ayaa labada kursi midka aqalka wakiilada iyo midka aqalka sanadkaba la qaban doonaa sida gudoomiyaha uu sheegay doorasho qaas ah ayaa dhici doonta marka arintaasi ayaa jirta oo aqalka wakiilada sida dastuurku uu qabo waxa la yiri 6 bilood ka hor waa inuu ku noolaa meesha uu ka tartamay laakiin guri uu ku leeyahay level Canada ayuu ku noolaa halkii uu ku noolaan lahaa Roseville iyo qaybo kamid ah Shoreville oo 40B ay ka tirsan tahay xaafadahaasi uu ka tartamay marka arintaasina waa arin kale oo muhiim ah dhinaca kale ugu dambeyntii madaxweyne Joe Biden waqtigiisa waa uu sii dhamaanaya hadda 15 maalmood ayaa ka harsan inuu xilka ka dhigo madaxweynaha awoodiisa waxa kamid ah in uu wax cafin karo isla markaana bilada uu siin karo dadka uu doono madaxweyne Joe Biden waxaan ognahay wadanka Mareykanka dadka xabsiyada qaarna waa state federal oo stateka dadka dacwadaha lagu helo ayaa la xukumaa oo la geliyaa qaarna waa federal marka 40 qof waxa jirtay bil ku xukunaa oo federal ah oo dambiye federal lagu helay madaxweynuhu marka 37 kamid ah ayuu waxa uu ka cafiyay dilkii ay ku xukunaayeen waxana uu ugu bedelay xabsi daa'im aan cafis lahayn ayuu ugu bedelay marka sidaas darteed eheladii iyo waliba dadkooda ay waxyeeleeyeen arintaasi aad ay uga xumaadeen laakiin Biden wuxuu yiri waan la murugoonaya dadkaasi dadkooda ay dadkan waxyeeleeyeen hadda cafiska aan u fidiyo dilkii aan ka dhaafay laakiin xabsi daa'im aan ugu bedelay laakiin waxaan taageersanahay yiri federal in dilka dhanba laga saaro dowladda federaalka dadka ay dilayso Trump xitaa arintaasi aad ayuu uga carooday bartiisa Truth Socialka ayuuna qoraalkan ku soo qoray madaxweyne Joe Biden sidoo kale toddobaadkii la soo dhaafay 20 qof ayuu wuxuu siiyay bilada qofka muwaadinka ugu qaalisan ee la siin karo oo madaxweynaha uu bixiyo Liz Cheney ayaa ku jirtay oo Republicana oo guddiga January 6 ku jirtay ee Trump dacwadaha ku soo oogay marka Trump arintaasi aad ayuu uga carooday waxa uu yiri Liz Cheney iyo Nancy Pelosi iyo wabakii ugu hanjabay inuu xabsi gelinayo marka isaguna aad ayuu uga carooday markii biladaasi bila sharafka ugu qaalisan ee madaxweynuhu bixiyo ee qof muwaadin la siiyo 20 qof oo Liz Cheney ku jirta uu siiyay shalay Biden sidoo kale waxa uu bixiyay bilada ugu qaalisan ee qof shacab la siiyo oo madaxweynuhu uu bixiyo 19 qof ayuu siiyay 19 kaas qof waxay isugu jireen dad aktar ah waxay isugu jireen sidoo kale dad caan ah oo siyaasiyiin iyo sidoo kalena dad arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqo marka dhinaca dhaqanka iyo sayniska la yiraahdo waxa ku jiray Lionel Messi xidiga reer Argentina oo hore Barcelona ugu ciyaari jiray haddana Inter Miami u ciyaaray labadii sano ee la soo dhaafay ayuu kubadda Mareykanka wax ka bedelay marka la eego dhinaca lacagta ama tikidhada ama sidoo kalena dadka daawanaya iyadoo sidoo kale dhalinyarada da'da yar hadda ay ku dhiiranayaan kubadda cagta inay bartaan dadka bilada la siiyay waxa kamid ah Hillary Clinton oo hore senator u soo noqotay first lady soo noqotay sidoo kalena waxa ay soo noqotay madaxtinimo ay u soo tartantay wasiirka arrimaha dibaddana waa ay soo noqotay Hillary Clinton ayaa kamid ah Magic Johnson oo basketballka soo ciyaari jiray ayaa kamid ah actorka Denzel Washington ayaa kamid ah waxa kamid ah Michael J Fox isagana oo sidoo kalena TV personality iyo dhinaca filimada sidoo kale caan ka ahaa waxa kamid ah ninka la yiraahdo Jose Andres oo World Central Kitchen dadka meelaha dagaalada iyo dhibaatooyinka ay ka dhacaan macluusha ay geeyo cunto bisil oo dadka siiyo isagana halkaas lagu abaalmariyay marka madaxweyne Joe Biden maadaama xilka uu ka sii dagay awoodihiisa dhinaca cafinta iyo bilad sharafsiinta ayuu sii wadaa iyadoo hadda la filayo in dad fara badan oo Trump uu dhaarsan yahay in uu xiro ama uu maxkamadeeyo marka uu xilka la wareego inuu cafin doono xitaa Liz Cheney ay kamid tahay inuu cafin doono laga yaabo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo